bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe oo tegay isbitaalka magaalada beledweyne, dowladda turkiga oo qaaday tallaabooyin farxad gelinaya wadamada reer galbeedka, saraakiil sarsare oo ruushka ah oo lagu dilay wadanka Ukraine, madaxweynaha Faransiiska oo eedeyn u jeediyay madaxweynaha wadanka Ruushka. Wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne xilli halkaasi ay dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne iyadoo dhibaatooyin badan ay halkaasi ay ka jiraan kadib markii la sheegay in uu ku waxyeeloobay isbitaalkaasi qaraxyadii ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa tani u muuqanaysaa in ay aad dhibaatooyin badan ay xaalada adag ay haatan gelinaysa doorashada iyo sidoo kale arrimaha kale ay haatan ka jira. Tanina waxay u muuqanaysaa xaalada adag oo haatan soo kordhaya sida ay dhibaatooyinka kala duwan ee aadka loogu doonayay in xal kama dambeysa laga gaaro. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa horey waxay u codsadeen in laga hortago falalka amni darro, isla markaana madaxweynaha maamulka Hirshabelle looga baahan yahay inuu mar waliba samata bixiyo shacabka ku nool qaybo ka mid ah gobolkaasi. Magaalada Beledweyne ayaa waxaa yaala dhaawacyo aad u fara badan oo la sheegay inaysan haatan helin adeegyadii u baahnaayeen maadaama uu xirmay isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Wararka ayaa waxay intaasi ay ku sii darayaan in weli ay jiraan dad dhibaatooyin dhaawacyaha qaba oo ku sugan gudaha magaaladaasi. Haddana mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ayaana waxqabad muuqda ilaa haatan u qabanin dadkii ku waxyeeloobay dhaawacyadii kala duwanaa ee ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Qoysaska kala duwan ee degan qaybo ka mid ah magaaladaasi ayaa waxay sheegeen in maamulka gobolka Hiiraan aysan diyaar u ahayn in dadka dhibanayaasha ah wax loo qabto. Haddii ay wax u qaban lahaayeen ay dhibaatadaani ay ka bixi lahaayeen. Dhinaca kalena daawadayaal midowga musharaxiinta ayaa weli waxay wadaan qorshayaashooda ugu waaweyn oo ku aadan sidii ay uga taqlusi lahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda. Madaxda midowga musharaxiinta ugu horeeya Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame iyo sidoo kale siyaasiyiin kale ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay haatan rajadooda ugu weyn uu yahay in ay tallaabooyin adag oo arrimaha doorashooyinka ay qaadaan. Midowga musharaxiinta oo si weyn isugu diyaarinaya in ay doorashada madaxweynaha ay ku guuleystaan. Mid ka mid ah mas'uuliyiintaasi ayaa waxa ay haatan u muuqanaysaa in culays siyaasadeed ay la kulmayaan, inkastoo midowga musharaxiinta uu kala tafaraaruqii ugu xooganaa ebad uu soo kala dhexgalay. Haddana wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in xaaladaha adag ee haatan dalka uu ku jiro uu noqon karo mid saameyn badan bulshada uu ku yeelan karo. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame iyo Xasan Sheekh Maxamuud Daahir Maxamuud Geelle ay haatan ay noqonayaan kuwo isku mabda ah, halka Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo mas'uuliyiin aad u fara badan ay noqonayaan kuwo isku koox ah, taasi oo ay si weyn ay u dhaleeceynayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Abgaal Shariif Sheekh Axmed in uu taageero u siiyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa la sheegayaa inay toos ugu xiran yihiin kooxda Filla Soomaaliya. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in xaalka adag ee doorashada waqtiga uu muuqan karo mid dhac weyn uu keeni karaa. Dhinaca kalena madaxweynaha wadanka Faransiiska ayaa eedeyn u jeediyay madaxweynaha wadanka Ruushka. Madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay hadallo dood badan ka dhex dhaliyay madaxda dalalka ka soo horjeeda duulaanka Ruushka oo ku qaaday wadanka xadwadaaga ay yihiin Ukraine. Macron oo wareysi siinayay warbaahinta Faransiiska ayaa soo jeediyay in loo joojiyo hadallada qalaafsan ee xanafta leh haddii lagu beegsanayo madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin si uu u joojiyo dagaalka uu ku qaaday wadanka Ukraine. Hadalkani madaxweynaha Faransiiska oo ahaa in la joojiyo oraahda culus ee loo jeedinayo Putin ayaa waxay u muuqanaysaa mid dhibaato badan ka dhex dhaliyay wadamada dunida. Madaxweynaha wadanka
Mareykanka Joe Biden ayaa maalin uun kadib sheegay in dhigiisa Ruushka Vladimir Putin uu xilka sii hayn karin maadaama uu yahay dambile galay dembi bini'aadanimo kuna xadgudbay xuquuqda reer Ukraine. Emmanuel Macron oo madaxweynaha Faransiiska ayaa xiriir joogto ah la sameeyay madaxweynaha Ruushka Putin. waxyaabaha uu kala hadlana waxaa ka mid ah sidii xabad joojin loo raadin lahaa iyo sidii ay ugu go'naan lahayd in gebi ahaanba la soo gabagabeeyo dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. dadka reer Ukraine ayaa dhammaantoodba waxa ay doonayaan in xal waara laga gaaro dagaalka halkaasi ka jira. dhanka kale dowladda Turkiga ayaa qaaday talaabooyin aan farxad gelin wadamada reer galbeedka. qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay madaxda sare ee dowladda Ruushka iyo hantiliyaal u dhashay dalalkaasi oo la tuhunsan yahay inay xiriir dhaweyle leeyihiin madaxweyne Vladimir Putin. hantida maalqabeen u dhashay dalka Ruushka ee lagu xayiray dalka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub waxa ay xayiraadaasi tahay mid cadaadis lagu saarayo dowladda Ruushka oo duulaan ku qaaday dalka Ukraine. dowladda Turkiga oo xiriir wanaagsan la leh dowladda Ruushka ayaa qaaday talaabooyin ka duwan midda wadamada reer galbeedka waxayna ay Turkiga ka tirsan tahay NATO oo ay shaacisay in aysan xanibeynin hantida maalqabeenada Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa waxa uu sheegay in maalqabeenada Ruushka ee loo yaqaano oligarkan ay sii wada karaan in ay ka ganacsiyo kala duwan ay ka sameeyaan wadanka Turkiga. sidoo kale maalqabeeno fara badan oo u dhashay wadanka Ruushka ayaa tagay durbaba wadanka Turkiga waxaana la sheegayaa inuu ka mid yahay maalqabeenka Roman Abramovich oo toddobaadkani ku xirtay dalka Turkiga. waxaa sidoo kale dalkaasi gaaragay maalqabeeno Ruush ah ee garoonka hantidooda wadamada reer galbeedka ku xanibeen. Turkiga ayaa xiriiro kala duwan la leh dalka Ruushka iyagoona Ukraine doonaya in dagaalka kala jira gebi ahaanba la soo gabagabeeyo. xukuumadda Ankara ayaa waxa ay horey u tilmaamtay in talaabooyin adag ay qaadayso ay noqon doonaan in ay mar walba ay ka fiirsan doonto. dunida caalamka ayaa il gaar ah ku haya waxyaabaha ka soconaya magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi Ukraine. caasimada Ukraine ayaa haatan martigelinaysa madaafiic joogto ah oo ay ku garaacayaan ciidamada Ruushka iyo dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayaan shacabka u dhashay wadanka Ukraine. madaxweyne Zelensky iyo Vladimir Putin ayaa go'aamo lama filaan ah qaadanayo kuwa ay ku doonayaan in lagu xaliyo caqabadaha adag ee mararka qaarkood shacabka wadanka Ukraine ay la kulmayaan. shacabka reer Ukraine ayaa waxa ay doonayaan in la dejiyo xaaladdu isla markaana dunidu mar kale ay ku soo noqoto si caadi ah. baqdin xoogan ayay muujinayaan wadamada reer galbeedka iyadoona ka baqdin qaba in dhibaato ay kaga imaado wadanka Ruushka. duulaanka Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa uu muuqanayaa mid saameyn fara badan durbaba dunida caalamka ganacsigiisa ku yeeshay. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga inta daba daawada. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin. nabadgelyo.